Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Dibile Teaching Program. Kusoo dhawow programka waxbaritaan ee Dibile. Maantana casharkeena waa A and an sida loo isticmaalo a iyo an. Marka koowaad akhriyo. Look at the following examples. Fiiri tusaalooyinkan soo socdo. A cup, a doll, a girl, a house, an apple, an egg, an elephant, an ox, an umbrella. Okay, look at the following examples. Fiiri tusaalooyinkan soo socdo. Buugga English 8 Class 1 markaa fiirisid look at the following pictures ku qoran. Laakiin anaga picture meeshan kuma sawir karno ama sawir meeshan ku samayn karno. Marka tusaalahan fiiri le ku leeyahay. Look at the following examples. Tusaalooyinkan soo socdo fiiri. Number 2 waxa uu dhahay a cup waa koob, a doll waa bombolo, a girl waa gabar, a house waa guri. Marka tusaalaha labaad fiiri haddan waxaa lagu dhahaa an apple tufaax, an egg ukun, an elephant maroodi, an ox dibi, an umbrella dallad. Sidee loo kala isticmaalay a and an sidee loo kala isticmaalay haddaba aan ku sharxo waxaa loo kala isticmaalay sidaan. Fiiri xarafka cup, fiiri xarafka doll, xarafka girl fiiri, xarafka house na fiiri. Xarfahan dhan waxay ka wada siman yihiin waxa ay ka bilaabteen waa shibane. Haddii ereyga uu ka bilowdo shibane waxaad isticmaalaysaa a. Tusaale a cup, a doll, a girl, a house. Shibanayaal waa consonant waa kulligood. Tusaalaha labaad fiiri apple, egg, elephant, ox and umbrella. Kulli waxay ka wada bilaabteen waa vowel ama shaqal. Sidaas darteed waxaa la isticmaalay an apple, an egg, an elephant, an ox, an umbrella. Okay. Write a or an before these words. Qor a qor ama an ku qor erayadan soo socdo erayadan hortooda before these words. Boy waa wiil maxaa dhehe shibano ka bilaabtay boy. Girl waa gabar maxaa dhehe a girl. A dog, a cup, an ox, a hat, a tree, a chair kursi waaye, man waa nin, doll waa bombolo saa usoo qaadan, a house, an elephant, a lady, teacher macallin waaye waxaa dheh a teacher, an umbrella, a book, a cat, an apple, a woman. Okay. Write qor a or an in the gaps. Meelaha bannaan waxaa ku qoray a ama an. Maxaa dhahnay a waxaa lagu qoraa xarafka marka oo ku bilaabto shibane. Anne waxaa la qoraa marka oo ka bilaabto maxaa la isaga ereyga ama magaca marka oo ka bilaabto shaqal. Okay, this is dish. Maxaa dhahay meelaha dash oo bannaan? This is a dish. Tan waa maacuun. Give me book. Maxaa dhahay? Give me a book. I want maxaa dhahay? I want an apple. Waxaa u baahanaa tufaax. Show me itus maxaa chair. Kursi itus. Maxaa dhahay? Show me a chair because chair waa shaqal. This is an egg. Tani waa ukun. This is egg. Maxaa dhahay? This is an egg. Sababtoo ana isticmaalay sababtoo egg waxay ka bilaabto waa shaqal. Okay. This is ox. Maxaa dhahay? This is an ox. Kani waa dibi. Waa Laura. A and an. A cup, a doll, a girl, a house. Inta waxay ka bilaabteen shibane waxaan la isticmaalay a. Apple, egg, elephant, ox, umbrella. Inta waxay ka bilaabteen shaqal waxaan la isticmaalay an. Write a or an before these words. Waxaad qortaa a am an xarfahan hortood. Boy waa wiil, girl waa gabar, dog waa wiil, cup, ox, hat, tree, hat waa koofi, tree waa geed, chair waa kursi, man waa nin, doll waa bombilo, house waa guri, elephant waa maroodi, lady waa marwo, teacher waa macallin, umbrella
ودلت بوك وبوكات وبسد apple وتفاح woman وناك انت بوحي الشقل ان وحكو رقري ان وحي شبني انه وحكو رقري A. Write A or an in the gaps. Melah banang A am on kokor. This is dash dash dish. This is a dish. Give me a book. I want an apple. Okay. Show me a chair. This is an egg. This is an ox. Kaniwa dibi. Wala hadii aad ku cusub tahay barnaamijka Disability Teaching Program, please subscribe. Fadlan subscribe gray and turn on the notifications gambaleelkana furo si aad u heshid cashiradeena taxanaha ah buuggeennii English 8 lesson 5 inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. So let us stop there.